Soomaaliya ayaa marka la hadalhaynta warbaahinta caalamka ku qabsatay ciwaan fool xun. In Somalia, an investigation into a huge shipment of charcoal exported from the country is underway. Illegal. You cannot do that. It brings instability to our country. Every 30 seconds, a tree is cut down to make charcoal in this country. Kalkan fadeexadu waxa ay garaacaysaa ganjeelka guriga lagu hayay furaha sumcadda qaranka. Ra'iisul Wasaare Roble oo shaqo joojin ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inuu fasaxay dhuxul si sharci darro ah loo dhoofiyay. Cadeymo ayaa muujinaya mashruuc ay liijaanka u hayeen saamilay haysatay silig dawladeed. Cabdisaciid waa wasiirka labaad ee saaxiibka la ah Farmaajo oo ku lug yeeshay isdabamarin. Bishii Febraayo, wasiirka Batroolka Cabdirashiid Maxamed ayaa isku dayay xarasho daba xirmo oo shidaal ah. Wax soo saarka iyo dhoofinta dhuxusha waa dhaqdhaqaaq ganacsi oo jiray waagii gumeysiga. Dowladda Soomaaliya iyo golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa mamnuucay 2012. Haddaba, marka la isku geeyo xisaabaadkan, kooxdii talada laga tuuray maxay Soomaaliya u goobaysay nabad iyo nolol mise col iyo ceebayn.